kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa codka kalsoonida kala noqday xukuumadda uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in xukuumadda kalsoonida ay kala noqdeen 170 mudane halka 8 xildhibaan ay diideen mana jirin cid ka aamustay. waxaan rabnaa codka kalsooni kala noqoshada inaan u qaadno inta ogol u codeynay gacantaaga inta diidan gacanta taaga دجيا انت كعامصي حكومة كالسؤالين وارجلا نقضي وادعي مدحوينها جمهورية الفدرالية وإنه صاد ساعة حكومة أوده ودن كدورش إلى جاتيسو طبعا كان لقوا حريهاي intaas kadib markii gudoomiyaha golaha shacabka uu ku dhawaaqay natiijada kalsooni kala noqoshada xukuumadda waxa golaha shacabka hareebo iyo sawaxan ay sameeyeen xildhibaanada qaar war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu soo dhaweeyay go'aanka golaha shacabka ee kalsoonida kala noqdeen xukuumadda uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre